Sheekada 25aad Shaydaan oo damcay inuu Ciise duufsado. Markii Ciise Masiix la biyo-geliyey, Ruuxda Quduuska ayaa u kaxaysay dhanka iyo duurka. Halkaas ayuu ku soomanaa muddo 40 maalin iyo 40 habeen. Kadib Shaydaan ayaa u yimid oo isku dayay inuu Ciise duufsado. Shaydaankii ayaa ku yidhi, haddii aad tahay wiilka Ilaahay, dhagaxan ka dhig rooti si aad u cunto. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, qoraalka Ilaahay ayay ku qoran tahay, dadku rooti oo keliya uma baahna si ay u noolaadaan, laakiin waxay u baahan yihiin wax kasta oo Ilaahay ku hadlo. Kadib Shaydaankii wuxuu Ciise saaray meesha ugu dheer macbudka, wuxuuna ku yidhi, haddii aad tahay wiilka Ilaahay halkan iska tuur, waayo waa sida qorane. Ilaahayna wuxuu malaa'igtiisa ku amri doonaa inay ku qabtaan inta aysan lugahaaga dhulka gaarin. Laakiin Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Ilaah wuxuu dadka ku yidhi, ha tijaabinina Rabbiga Ilaahiinna ah. Kadib Shaydaankii ayaa Ciise tusay dhammaan boqortooyinka adduunka iyo wixii barwaaqo dul taallay oo dhan, wuxuuna ku yidhi, adiga ayaan ku siin doonaa haddii aad aniga ii sujuuddo oo aad aniga i caabuddo. Ciise ayaa u jawaabay oo yidhi, iga tag Shaydaanow, qoraalka Ilaahay wuxuu dadka ku amrayaa inay caabudaan Rabbiga keligiis, isagana ay u adeegaan. Ciise wuu ka adkaaday Shaydaankii rabay inuu duufsado, Shaydaankiina wuu isaga tegay isaga. Kadib malaa'igihii Ilaahay ayaa Ciise u yimid, wayna xanaaneeyeen.